yaa la oran karaa waa uu saxsan yahay madaxda is haya niyow kiisasku waa kala dameeyeen laakiin mostly anigu eedan waxa saaraya Siciid sababtoo ah kiiska hadda la isugu dameeyay oo hadda la isku hayay Siciid madaxweyne wadanka kama wahayn ba Axmed Garaash ba madaxweyne ka ahaa soo ka noqon karaa dastuurka Puntland baa wuxuu cadeynayaa madaxweynaha Puntland hadduu ka baxo xuduudaha Puntland waxa madaxweyne fuula noqonaya madaxweyne ku xigeenka fadlan haddii aad nagu cusub tahay like follow iyo share page-kan muddo waxaa soo laabtay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa Garaash oo markii saddexaad ayuu taagan yahay markan khilaaf u dhaxeeyo miyaanu dastuurka Puntland iyo dhaqanka iyo jiritaanka maamulku kala saarayn xeerarka iyo nidaamyada ay ku shaqeynayaan labada mas'uul ee wadanka ugu sareeya ama aan iraahdo Puntland maxaa soo celceliyay khilaafkan niyo waa sax Puntland waxay leedahay dastuur iyo qawaaniin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna door bay kala leeyihiin waliba dastuurku awoodda ugu badan wuxuu siinayaa madaxweynaha waxyaalaha soo celcelinaya waxaan isleeyahay saddex shay baa asaas u ah kow dastuurkan lagu dhaqmayn labo awoodda Puntland oo u samaysan qaab qabiliya oo dawladnimada marka la dabaqayo in dastuurka iyo shuruucda la aado ay ka awood badan tahay dadku in qaab ma taqaanay metalaada nin walba kursiga uu ku fadhiyo uu qiimeynayo iyo waxaan isleeyahay baarlamaanka Puntland oo aan marna qaadan doorkii shariifka ka ahaa arinta iyagoo ilaalinaya dastuurka Puntland waya yaa la oran karaa waa uu saxsan yahay madaxda is haya niyow kiisasku waa kala dameeyeen laakiin mostly anigu eedan waxa saaraya Siciid sababtoo ah kiiska hadda la isugu dameeyay oo hadda la isku hayay Siciid madaxweyne wadanka kama wahayn ba Axmed Garaash ba madaxweyne ka ahaa soo ka noqon karaa dastuurka Puntland baa wuxuu cadeynayaa madaxweynaha Puntland hadduu ka baxo xuduudaha Puntland waxa madaxweyne fuula noqonaya madaxweyne ku xigeenka laakiin waxa dastuurka ku qoran sida la sheegayo in ay tahay Soomaaliya inuu ka baxo madaxweynuhu ee aan ay ahayn in Muqdisho uu joogo madaxweynuhu dabcan Soomaaliya wali jooga maya Soomaaliya Puntland Soomaaliya ka mid ah marka xuduudaha Puntland waa la yaqaanaa macnaheedu waxa weeye xuduudaha Puntland hadduu ka baxo maamulkii iyo awoodii madaxweynenimadu waxay si toos ah ugu wareegaysaa madaxweynaha ku wareegaysaa madaxweynuhu musharax buu ahaa halkan uu yimi musharax madaxweyne isagoo ahna xilkii iyo awoodii Puntland ma sidan karo warna uma hayn karo marka si sharciya oo sifan sharciya ba wixii awooddaas ku wareegaysa madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha ku-xigeenkana laga rabay in Puntland laga xisaabtamo dastuurkuna awood buu siinayo marka waxaan aaminsanahay taas Siciid baa ku gardaran waxa uu maamulay soo maamulay waa another case kale oo iyadu waa dood kala gaarkeeda ah laakiin muhiimaddu waxa waaye awoodda waxa iska lahaa madaxweynaha ku-xigeenka halka khilaafka muxuu ku jiraa halka khilaafka wuxuu ku jiraa inay ka wada hadlaan labadooda inay ka wada hadlaan isugu yimaadaan ka garnaqsadaan Puntland u turaan lafahoodana u turaan